halkii aan ku dulmanay baan naalaa halkii aan weligeen ku dulmanay iyaan naalaa Soomaalilandna waxba ka hagaagi maayaan ilaa alla garto siyaasadda Soomaaliland oo xitaa dastuurka la bedelo oo saamiga lagu qaybiyo oo la yiraahdo sida saxda ah loo qaybiyo oo waa xaraan weeyaan saamiga aan ku haysanaa saami ma wuu yar yahay ya haddii Soomaaliland gada buursigu horboodayo oo ilaa waxa weeyaan waan wada leenahay halkana lagu dhisay oo qoonsiga isagu raadinayo oo 18 may gudiyada ay madax ka yihiin dibadda u baxaysa oo qoonsiga Soomaaliland mar hore heelay cadaalad darradaasi way jirtaa kana gaban maayo halkaas ay taala laakiin wadankan maxay hayday ka mid nahay ummadda Soomaaliland ugu horeysana waxyaalaha saxda ah ee jira lagama gagabado cadaaladna maaha cadaalad darro badan baa ku jirta marka weligeed cadaalad darraduna shaakir looga bixi karaa gudoomiye waxa looga bixi karaa horta in dib la isku noqdo oo waxa weeye midnimada iyo Soomaaliland darnimada iyo wada dhalashada iyo wadankan sida loo degan yahay la eego waxaan qabaa anigu in dastuurka si sharci loo bedelo oo dastuurka inta la bedelo nidaam fiican oo wadanku ku socdo dastuurka lagu celiyo baarlamaanka bedelo bal adigu waxaad qiyaastaa taliyaha booliska reer qurac buu ka dhashay wixii dambi galay isaga soo qabanaya xeer ilaaliya uu ka geynayaan oo reer qurac xeer ilaaliyeena adeerkii uu geynaya gudoomiyaha maxkamadda xukumayana waa reer qurac ma maxaabiis baan nahay cadaalad darro xaraana taala gudoomiye mar walba dawladda hadda talada haysa waxay sheegtaa in cidii saami qaybsiga ka cabanaysa tabasho qabtaa inay xukuumadda hor timaado oo la xisaabtanto arintaasi soo maaha mid ay gaabiyeen aqoonyahankii wax garadkii ka soo jeeday halkan laba gaabino afkubaadsi madaxweynuhu waanu yeernay halkan uu noogu yimid halka ayaa kula shirnay wax alliya waxa aan doonaynay oo dhan baan u sheegnay in la aqbalaa ka horeysa khilaaf kala la sii dhaliyo waxa la yiri reer hebel bay wax ka maqan yihiin ta khalkhalkiisa ila doorashada waati ku timid madaxweynihii oo joogay wasiiradiisa nagu yiraahdeen reer hebel bay wax ka maqan yihiin waxba igama maqan wax badan oo dadka ka qarinayna jira oo aan jeclaynana anagu gudbino marka waxa weeye in dhowr goor baa laga hadlay xildhibaanadii baarlamaanka iyo kuwii goobta iyo odayaashii oo dhan baa hadlay halkan aan madaxweynihii baan u yeedhanay si xaq oo sharaf buu noogu yimid booramuuna soo dhexdegay wasiiradiisi baa wixii oo ka jawaabi lahaa wax ka duwan noogu jawaabay tan anaka dhisanay khalkhal uma ogolin wareerna uma ogolin in la aqbalo oo ay xukuumadda markaa jirta ay talada aqbasho oo ay qaadato shay muhiim weeyaan marka waxa weeye sheekadaasi waxa weeye wax dhulka u dhacdacayo hoos oo meel hoose yaala maaha cadaalad darro badan baa jirta cadaalad darrada badan ee faraha badan leh maaha waxaan tusaale intaasaa kuugu filan xeer ilaaliyaha ku soo taliyaha booliska ku soo qabtay xeer ilaaliyaha adeerkiisa ku dhiibay gudoomiyaha adeerkiisa ku dhiibay oo ku xukumin codba malihidba marka anaguna waxaan eegaynaa in Soomaaliland ay maxay ahayd dhibaato soo gaadho ayaan leeyahay